kulanti wacan wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada Dalable Media waxaan idin wadaagi doonaa golaha wasiirada oo ansixiyay heshiis cusub iyo jaamac war ka soo saaray hadaba heshiiskaasi iyo warbixinta laga soo saaray maxay yihiin halkan ayaan idin kula wadaagi doonaa sidoo kale waxaad maqli doontaan Shiinaha oo wafdi sare u soo diraya Soomaaliya kadib talaabada Israa'iil hadaba wafdigaasi iyo waxa uu qaban doono ayaan sidoo kale halkan idin kula wadaagi doonaa kulankii degdega ahaa ee maanta ay yeesheen golaha wasiirada oo ka qayb galay madaxweynaha Soomaaliya iyo sidoo kale waxyaabihii lagu falanqeeyay ayaa halkan idin kula wadaagi doonaa soo dhawaada channelka subscribe inoo saar muuqaalkiina oo share gareey aragtidiina inagu la wadaagay qaybta faallada mahadsanidin golaha wasiirada Soomaaliya ayaa maanta waxa ay kulan xasaasi ah ku yeesheen xarunta Villa Soomaaliya kaas oo gudoomiyay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo maanta tagay xafiiska ra'iisul wasaaraha kulankan oo ah mid aan caadi ahayn ayaa waxa diiradda lagu saaray xaaladda soo korortay gaar ahaan midnimada dalka si loo xoojiyo madaxweynaha ayaa sidoo kale dhageysanaya warbixinada golaha wasiirada kadibna waxa uu la wadaagi doonaa qorshayaal cusub ee dawladdiisa ay wado maadaama loo baahan yahay in la qaado tallaabooyin looga jawaabayo xadgudubka Israa'iil waxa kale oo kulanka looga hadlay dadaalada lagu xoojinayo amniga qaranka la dagaalanka kooxaha nabadiidka xaaladda abaaraha iyo arrimo kale sidoo kale marka uu soo dhamaaday kulanka ayaa golaha aan caadiga ahayn waxa laga soo saaray war ku saabsan qodobada laga wada hadlay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maalmahan waxa uu waday kulamo gaar ah oo uu la yeelanayay madaxda dawladda kuwa mucaaradka dawlad goboleedyada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada isaga oo kala hadlayay xoojinta midnimada dalka xalay oo ay ugu dambeysay wuxuu kulan kadis ah la yeeshay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo ugu tagay hoygiisa wuxuuna kala hadlay sidii xal loogu heli lahaa tabashada mucaaradka iyo midnimada guud ee dalka hadaba kulankii ay yeesheen golaha wasiirada Soomaaliya ayaa lagu ansixiyay heshiisyo cusub golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya ayaa kulankii aan caadiga ahayn ee uu ka qayb galay madaxweynaha ee maanta ka dhacay xarunta Villa Soomaaliya waxa ay ku meel mariyeen heshiis cusub oo lala galay Sacuudi Carabiya heshiiskan ayaa ah mid iskaashi oo u dhaxeeya hay'adda guud ee gaadiidka boqortooyada Sacuudi Carabiya iyo sidoo kale wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya golaha ayaa sidoo kale ansixiyay xeerka dhismaha macadka Soomaaliyeed ee badaha iyo sidoo kale axdiga caalamiga ah ee halbeegyada tababarka shahaadasiinta iyo ilaalinta badmaaxiyiinta 1987 wasiirka wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabduqaadir Maxamed Nuur ayaa golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya waxa uu uga mahadceliyay meel marintan wasiirka ayaa tilmaamay heshiiskan xeerkan iyo axdigan in ay muhiim u yihiin xoojinta iskaashiga caalamiga ah ee gaadiidka badda dhismaha iyo tayeynta hay'ad qaran oo soo saarta xirfadlayaal badeed oo tayo leh iyo hubinta in badmaaxiyiinta Soomaaliyeed ay helaan tababar shahaado iyo sidoo kale badbaado la jaan qaadaysa heerarka caalamiga ah dadaaladan ayaa qayb ka ah qorshayaasha istaraatiijiyadeed ee wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda iyo siyaasadda guud ee xukuumadda danqaran tan ayaa taageeraysa hirgelinta qorshaha isbedelka qaran NTB horumarinta danaha qaranka kobcinta dhaqaalaha buluuga ah iyo sidoo kale sare u qaadista kaalinta Soomaaliya ee ganacsiga iyo gaadiidka badda Soomaaliya iyo Sacuudi Carabiya ayaa waa cusub u bariyay kadib talaabadii ay qaaday Israa'iil ee aqoonsiga maamulka Somaliland dawladaha Soomaaliya iyo Sacuudi Carabiya ayaa waxa haatan u bariyay waa cusub oo ay ku xoojinayaan xiriirkooda kadib talaabadii ay qaaday Israa'iil oo dhawaan aqoonsi siisay maamulka Somaliland labada dawladood ayaa haatan bilaabay inay si xawli ah kor ugu qaadaan xiriirkooda diblomaasiyadeed iyaga oo isku muujiyay garab istaag marka loo fiiriyo talaabooyinkii ugu dambeeyay ee ay qaadeen labada dhinac Soomaaliya ayaa dhawaan taageertay hogaaminta boqortooyada ee ku aadan xasilinta dalka Yemen iyada oo kala safatay dalka isu tagay Imaaraadka Carabta halka boqortooyada Sacuudi Carabiya ay iyaduna si buuxda u taageertay madaxbannaanida Soomaaliya iyada oo ka hortimid aqoonsiga Israa'iil ee maamulka Somaliland sidoo kale isbedelkan xiriir ee dhacay toddobaadkan ayaa suuragal waxa uu ka dhigay inuu bedelo jihada siyaasadeed ee gobolka Geeska Afrika iyo gacanka cadan sida ay ku warameen falanqeeyaasha ku xeel dheer arrimaha gobolka iyo Carabta dhinaca kale waxa haatan magaalada Riyadh ee dalkaasi Sacuudi Carabiya ku sugan wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Mudane Cabdisalaan isagoo kulamo ka wada magaaladaasi waxa sidoo kale ku biiray taliyaha nabad sugidda Soomaaliya Mahad Maxamed Salaad oo isna gaaray dalka Sacuudi Carabiya labada mas'uul ayaa horu dhac u noqonaya wafdi oo horkacayo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo booqasho rasmi ah ku tagaya dalka Sacuudi Carabiya
wararka ayaa sheegay in ujeedka safarkan uu la xiriiro kor u qaadista xiriirka labada dowladood iyaga oo sidoo kale ka wada hadli doona heshiisyo ay horay u wada galeen Muqdisho iyo Riyaad si loo fuliyo. sida aynu xoga ku helnay waxaa arrimaha laga wada hadlayo qayb ka ah in boqortooyada Sacuudi Carabiya ay markii ugu horeysay gacan siyaasadeed siiso Soomaaliya iyada oo miiska ay saaran tahay in Sacuudiga dhexdhexaadiyo dhinacyada isku haya siyaasadda Soomaaliya si loo gaaro xal waara. si kastaba haatee dhaqdhaqaaqan diblomaasiyadeed ayaa daba socda ku dhawaaqistii Israa'iil ee 26 December markaas oo ay si rasmi ah u aqoonsatay maamulka Somaliland inay tahay dawlad madax bannaan. waana dalkii ugu horeeyay ee sidaas sameeya tan iyo markii ay Somaliland ku dhawaaqday gooni sutaaga sanadkii 1991 kadib burburkii dawladda dhexe ee Soomaaliya. gudaana saaxiibayaal warbixinteena inta ayaan kusoo koobaynaa waxaan idinka codsanaynaa haddii aad inagu cusubtahay inaad channelka subscribe inoo saarto muuqaalka inoo share garayso aragtidaadana aad inagula wadaagto qaybta faallada mahadsanidin.